dowladda Taiwan ayaa qaaday tallaabooyin lama filaan ah oo ay ku garab istaagayso Somaliland waxaana ay kor u qaaday tababarada iyo tayeynta ciidanka Somaliland ee militariga tan iyo markii ay qaraxday xiisadii magaalada Laascaanoodna waxa dalka Taiwan uu Somaliland la garab taagnaa saanad casri ah iyo taakulooyin joogto ah safiirka magaalada Hargeysa u fadhiya dalkan oo kulan la yeeshay saraakiil ka tirsan militariga Somaliland ayaa waxa uu sheegay inay soo saari doonaan 4 sanadood ee fooda inugu soo haya cutubyo si gaar ah u tababaran haddaba maxay Somaliland uga dhigan tahay taageerada waddanka Taiwan warbixinteennan ayaynu ku soo koobaynaa xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa muddooyinkii ugu dambeysay waxa ay qorsheynaysay inay soo celiso soodimihii ay lumisay ee magaalada Laascaanood sidoo kalena soo xidho xuduudka ay Somaliland la leedahay Soomaaliya tallaabooyinkan marka la qaadayana waxa lama huraan u ah tayeynta ciidanka iyo sidoo kale isbedel lagu sameeyo dhinaca militariga ee Somaliland iyadoo taasi laga duulayo ayaa ciidamada militariga ee Somaliland waxa loo sameeyay tababaro isdaba joog ah iyo tayeyn dhinaca saanada dadaalladan ayaa waxa qayb ka ahaa Ethiopia, Taiwan iyo wadamo kale oo ay Somaliland yihiin saaxiib dhow ilo wareedyo militari oo ay warbaahinta xuquuqaal heshay ayaa sheegaya in la soo saaray muddadaasi 36 guuto in ka badan oo si rasmi ah ugu biiray ciidanka militariga ee Jamhuuriyadda Somaliland intii qorshaha iyo diyaar garowgaasi socdayna waxa isbedeshay xiisadda siyaasadeed ee geeska iyada oo Soomaaliya oo si weyn qayb uga ah dirirtii magaalada Laascaanood ka qaraxday 2023 bishii labaad ay doonayso mar kale inay ka fuliso meelo kale oo galbeedka Somaliland kamid ah qalalaasayaal la mid ah kii Laascaanood ayaa markasta waxa baahida koobaad loo qabaa in la helo dhalinyaro si gaar ah u tababaran oo difaaca midnimada iyo wadajirka Somaliland iyadoo taasi laga duulayo dowladda Taiwan ayaa qaaday tallaabo muhiim ah oo taageero weyn u noqon doonta Somaliland waxaana ay sheegtay inay soo saarayso cutubyo si gaar ah u tababaran 4 sanadood ee fooda inugu soo haya kulan ka dhacay safaaradda ay ku leedahay magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland ayaana ay ka shaacisay inay tayeyn doonto sidoo kalena qalabayn doonto cutubyo ka tirsan ciidanka militariga ah ee Somaliland kuwaasi oo ay ka qaadan doonto 4 sanadood ee fooda inugu soo haya dhalinyarada dugsiyada ka soo baxaysa ciidankan ayaa waxa uu isugu jiri doonaa ay Taiwan tababarayso saraakiil iyo dhalinyaro kale oo la barayo aqoonta ciidanka ee kala duwan tanina waxay Somaliland uga dhigan tahay in hadafkeeda ay gaadho oo ay u soo samreysay in ka badan 30 sanadood taasi oo ujeedka kaliya ee xukuumadiisa soo bedelayay ay lahaayeen u ahaa inay soo xidhaan soodimaha ay la leedahay Somaliland waddanka Soomaaliya xukuumadda madaxweyne Biixi ayaa qorsheynaysa inay soo celiso soodimihii gacanteeda ka baxay intii ay tala dhaxaysay taageerooyinka iska soo daba dhacaya ee wadamada ay Somaliland saaxiibka la tahayna wax badan ayay ka qaban doonaan in la gaadho hadafka loo soo samraayay in ka badan 30 sanadood militariga Somaliland oo ah awoodda kaliya ee ay shacabku ku seexdaan ayaa tayeyn iyo wax ka bedel ballaaran lagu sameeyay iyadoo Somaliland isu diyaarinaysa dirir kaga iman karta cid kasta oo ka soo horjeeda jiritaankeeda